السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان حلبان هذا برلمانك دول قبلتك جبلان وأنا حلبان دكتور شير عبدي محمد شير علي وعن ربا إن لو ذاك دمان حلبان هذا شرفت له إن شاء أما إن أقويسيو قصة عجيبة وحالي دعضي حالي واحد دعي عنق ير أو حالي الشيء markuu dhashay umlisooyinkii iyo mahooyinka ka umli cunugaas hooyadii xudunta laga jaray loo meeray dharkii mutaqaanaayay loo hogiyay markii la rabay in hooyadii dhashay in naaska afka loo geliyo ayuu cunugu hadlay subxaanallah cunuga markuu hadlayna wuxuu ka hadlay laba kalimadood laba jeer ayuu hadlay wuxuu yiri dhammaan ummadda muslimka ee adduunka waxaan farayaa buu yiri inaan u sheego ama ogeysiyo cudurkan viruska coronaviruska ee adduunyada gilgilay in ummadaha muslimiinta ah oo saameyn badan uusan ku yeelin doonin balse loo baahan yahay ummadaha muslimka ee adduunka inay sameeyaan laba talo oo soo socoto wuxuu yiri kow qof kastoo muslim ah waa inuu akhristaa 17 qulwal leh 17 qulwal leh qof kastoo muslim inuu akhristaa labo in subaxii markuu waaga bariyo la cabo shaah qareer ah oo laba jeer la kabado qoyskaas oo dhan haddaad qof tahayna shaah qareer laba jeer kabo haddaad qoys dhan aad tihiinna in shaaha qareerka ah laba jeer qof walba uu kabado fariintaas ayuu cunugaas akhri ayuu sheegay markuu intaas sheegay isla markii cunugii waa geeriyooday yacni waa ifka adduunka markuu imaaday labaas kalmood buu yiri ummadda muslimiinta oo dhan buu dardaarankaas siiyey isla markii naftu ka raacday cunug waa la duulay waa saqiir subxaanallah waa arrin mucjiso leh marka qof kasta oo muslim ah arrintaas saas la gaarsiiyo waana maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullah sida aynu walaalayaal ku maqlinay codkii xildhibaankii Soomaaliyeed ee hadlayay kaasoo dadka u digayay sidoo kalena wacyi gelinayay waxa uu sheegay in ilmo yar oo saqiira uu dhashay dabadeedna uu hadlay oo uu yidhi ilmaha yari cudurka coronavirus wax saameyn ah kuma yeelan doona caalamka islaamka sidoo kale haddii aad rabto inaad ka hortagto waa inaad akhrido suuratul ikhlaas 19 jeer iyo ama 17 jeer iyo in subaxa hore waa beriga in aad cabto shaah qaraadh adiga iyo qoysku markaa cudurku kuguma dhici doonaan arrinta marka walaalo badan ayaa fariimay soo diray codkana ila soo wadaagay oo rabay inaan uga jawaabo insha Allah ugu horreyn waxaan leenahay walaalayaal waxaad ogsoonaatay in diintan islaamka ay tahay diin kamilan oo dhamaystirantay qaala Allahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum diinakum ilaahay wuxuu yidhi maanta ayaan idin dhamaystiray diintiinni marka diin al-islaam diinta aan haysanay xaniifka ah waa diin kamilan cidina wax kuma soo dari karto cidina wax kama jari karto هذا أولاً ثانياً قضب كلابادان ربنا كهذلنا حلبانكو وحو لقد دريمي هذا الكيسة إن أنو يسوقو قوبشوغا هين أما الشاهد عيانا أو صو حاضري أو المهير أركي إن أنو أهين أي تهي ورلو سو قد بيي دابدنا يستغنى مركا وش على يستينو تدك لو قد بيو لقا يابين النية ديسو وناكسان تهي لكن قف كستو النية ديسو وناكسان تهي ما أصيب يوحي صحا أهم wuxuu ilmaha yari markaa uu yiri caalamka islaamka wax saameyn ah kuma yeelan doono cudurka coronavirus ama covid-19 ka loo yaqaan arrintaasna waxa weeyaan waxba kama jiraan waayo caalamka islaamka saameyn weyn iyo raad weyn ayuu ku leeyahay cudurkan waad ogsoontihiin in goobihii masaajidadii iyo goobihii cibaadada dhammaantoodba la wada xidhay oo caalamka islaamka masaajidadii ay hawanayaan oo jimcadii iyo jamaacadiiba dadkii loo diiday waxaad qiyaastaan walaalayaal cudurkan wuxuu keenay ama uu sababay in cimradii la joojiyo in beydka ilaahay ee xaramka tawaafkii la diido in i'tikaafkii masaajidka lagu i'tikaafayay la diido as-sa'yu bayna safa wal marwa in la diido sa'yigii subhanallah wax aan weligii taariikhda aadamaha soo marin ayaa markaa wax weey cudurkani uu keenay مساجدك إلهي ويقول وليطوفوا بالبيت العتيق هل لقوا طواف بيتك إلهي حرين يقفك النار كحرين يقفك هدو حج تجي أما عمرة تجي
ayaa maanta haawanaya oo cidi kuma tukanayso. waa masaajidkii salaadiisu ay u dhigmaysa 100,000 ee salaadood iyo masaajidkii nebiga ee 1,000 salaadood u dhigmayay isaguna subxaan allah inta midnaba laguma tukanayo. marka waa maxay saamaynta inoo hadhay? waa maxay raadka kale innaga inoo hadhay ee uu inoo geysan lahaa mar hadduu cibaadooyinkii oo ahaa wixii ugu weynaa ee qofka muslimka ah marka looga baahnaa inuu la yimaado, mar haddii uu xanuunkaasi uu keenay ama uu sababay in uu hor istaago cibaadooyinkii islaamka. saameyn weyn buu nagu leeyahay, cudur ahaan saameyn buu nagu yeeshay caalamka islaamka, cibaado ahaanna halkaasuu naga taagan yahay, dhaqaale ahaanna hadalkeedaba daa. qodobka saddexaad, ilmaha yari markii uu hadlay wuxuu yidhi si looga hortago waa in la akhriyo suurat likhlaas 17 jeer. in qur'aanka ilaahay la akhriyo waa shay wanaagsan oo ilaahay baa qur'aanka inoogu sheegay subxaana wa tacaala inaan akhrino qur'aanka. faqra'uu maa tayasara min alqur'aan, akhriya wixii idin fududaada qur'aanka bu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. qur'aanka akhrintiisuna waa cibaado, dhegaysigiisu waa cibaado, fahamkiisa, sharaxaadiisa iyo tafsiirkiisa intuba waa cibaado. mar haddii ay cibaado ay tahay, cibaadadana waxaan uga daba fadhiisanaynaa, waynu ka qaadanaynaa walaalayaal ilaahay iyo rasuulkiisa subxaanahu wa tacaala. ilaahayna waan ugu gaar yeelaynaa, rasuulkana waan kaga dayanaynaa. marka in 17 jeer la akhrinayo suurat likhlaas maxaa u daliila? in tiro cayiman la cayimo suuraddaas la dhaho suurad hebel ama suuratu yaasiin ama suuratu lmulki ama suuratu annaas ama suuratu lfalaq baa la akhrinayaa tiro cayiman. daliilkii keen ila waa cibaado weeyaan qur-aanku. marka qur-aanku sidiisaba waa mutlaq, wuu furan yahay, intaad doontaad akhrin kartaa. tiro xadidan oo laynoo sheegay oo la yidhi haddaad intaa akhrisataan ama suurad heblaayo aad akhrisataan cudurka coronavirus idinku dhici maayo ma jirto. qur-aanku sidiisuu barako u yahay, meel walbana waad akhriyi kartaa, tirada intaad doontana waad akhriyi kartaa. waxaana la mida arrintaas waxaa la mida kuwa cilaajiyada haysta ee iyaguna dhaha suurat lfaatixa 7 jeer baad akhrinaysaa, 14 jeer baad qul wallaha iyo qul acuudu birabbilfalaq iyo qul acuudu birabbinnaas aad akhrinaysaa. yaasiinka ayaad badsanaysaa, yaasiin ubaad leedahay oo waxa weeyaan 100 jeer ama 1000 jeer baad akhrinaysaa yaasiin waalqur'aani alxakiim. subxaan allah, waxaasoo dhan wax daliila male, laysa lahum aya daliil. wax daliila in tiro cayiman oo sidaas ah la akhrinayo wax daliil ah ma lahaaba yaraatee. qur-aankuna waa intaad doontaad akhrin kartaa, waa mutlaq oo wax soo xadidaya ma jiraan. qodobkaas afraad aan raba inaan kaga hadla waxa weeye ilmaha yar wuxuu yidhi waa in la cabbaa shaah qadhaadh si loogaga hortago markaa cudurka coronavirus. arrintaasna waxaan ka leenahay shaaha qadhaadh diintu miyay sheegtay kow, mise dadkii mutakhasisiinta ee dhakhaatiirtii ayaa sheegay in shaah qadhaadh la cabo oo xanuunkaas uu daawo ka yahay shaaha qadhaadh? haddii ay diintu ay sheegtay daliilkii baan u baahannahay inoo sheegayay shaaha in qadhaadh in la cabo. aslan marka horeba xilligii nebiga shaahu ma jiray, mabuu jirin wax la dhada shaahu la cabo salaada hore iyo subaxa iyo waxan oo dhan, cabitaanadan oo dhan way ka dambeeyeen. waayahay mar haddii aanay diinta sal ku lahayn in shaah la cabo iyo waxyaala saasaanay wax daliila iyo xujid toona aanay ku lahayn, waxaa loo baahan yahay markaa in dadkii mutakhasisiinta ku takhasusay arrintan ee cilmiga dhakhtarnimada iyo cilmiga caafimaadka iyo sixada bartay in ay markaa inoo sheegaan. leannu ilaahay ba qur-aanka wuxuu nagu sheegay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. haddaydan aqoon u lahayn waa inaad weydiisaan dadka aqoonta u leh. marka iminka ahlu dikriga ama dadka aqoonta u leh arrintani ka faalloon kara ama ka hadli kara ama daawadiisa sheegi kara ama ka hortagiisa sheegi kara waa dhakhaatiirta iyo dadka maaragtay caafimaadka ku howlan, kuwaasunbaa sheegi kara. marka shaahaas qadhaadhay la cabayo dhakhaatiirtu mar haddaanay noo sheegin, diintana aan laynoo sheegin, waxba kama jiraan. marka guntiyo gabagabadii markaan isku soo duubno waynan ogsoonaanaa walaalayaal diintan islaamku inay tahay diin ka milan. ilmo yar baa hadlay oo mucjisa meel ka hadashay iyo qof baa riyooday ama islaam baa riyootay ama oday baa riyooday ama inan yar baa riyooday, waxba kuma soo daraan diintan, waxna kama jiraan. diin alislaam waa diin ka milan, waana diin dhammaystiran, waana diin cilmiyeysan, shay kastana loo baahan yahay wax cilmiyeysan. aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa. waxaan idinkula talinayaa in maadaama xilligan musiibadan iyo balaayadan cudurka coronavirusku uu badan yahay in aad wararka iyo akhbaaraadka iska hubsataan. ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu. iska hubsada warka marka laydin keeno, iska hubsada, waayo waxay saamaynaysaa arrintani caafimaadka aadamaha iyo sixada bashariyadda ayay saamaynaysaa. wax yaroo si sahlan social mediaha loogu faafiyo ma aha.
بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته